laas canood waa la isugu tegey dowladii Soomaaliyeed oo guuraysa ayaa saacadaha soo socota laas canood ku wajahan haddaba dowladii Soomaaliyeed wasiiro dheh taliyaal ciidamo dheh dowladii madaxdii Soomaaliyeed laas canood baa loo wada socdaa dadkaygiyow waynu guulaysanay guul baynu gaadhnay caawa haddaan geeriyoodo dhammaantiin waa islaamaya daawadayaal halkan waad iga dhegeysanaysid waa Cabaas Madani platformada kala duwan ee aan ku leeyahay social media Facebook Twitter YouTube ila TikTok meel ka soo aad iga dhegeysanaysid halkani waa Cabaas Madani dhegeystayaal waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo safarka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sayid Xamse Cabdi Barre oo ku wajahan saacadaha soo fool leh magaalada madaxda dowlad goboleedka SSC Khaatumo ee Laas Canood wararka arintaasi ka soo kordhay ayaa warbixin kooban idinka siinaya xaaladda guud SSC Khaatumo sida ay ugu diyaar garoobeen xogaha safarka ra'iisul wasaaraha waxa idinka ogeyn iyo waxa ogtay intaba waan idila wadaagay insha Allah fadlan waxa idinka codsananaa si share gareeya muuqaalkan like-ta iyo follow-da waxa xageena weeye caaw kale waxa weeye waa cibaado ku cibaadeysta insha Allah ta'ala goreen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa saacadaha soo fool leh ku wajahan magaalada Laas Canood ee xarunta gobolka Sool ahna magaalada madaxda dowlad goboleedka SSC Khaatumo ee Laas Canood magaaladani waa magaalo toddobaadkii ugu dambeeyay iyo dhowrkii sano ugu dambeeyayba magaalada ugu hadalhaynta badan dhulka Soomaaliyeed weeye dad badan oo Soomaaliyeed way isweydiinayaan oo ay dhici kartaba waligood bay Laas Canood u arag war maxay tan magaaladan iyo dhulkan iyo deegaankan iyo reer SSC Khaatumo aadka baraha bulshada lagu hadalhayo ma aha markii koowaad waxa weeye qarnin ka hor xilligii daraawiishta cidda kaliya ee la dhageysan jiray ama geeska Afrika laga faaloon jirayba iyo dunidaba waxay ahaayeen reer SSC Khaatumo boqolkii sano ugu dambeeyay baa xoogaa xidigoodu hoos ah laakiin hadda xidigoodu waa kor weeye Laas Canood waa magaalo weyn waxay caasimad u tahay SSC Khaatumo waxaa deegaankaasi ku nool SSC Khaatumo dad Soomaalinimadu ay ku weyn tahay dhulkaasi waa dhul Soomaaliya iyo gobolkaba u ah dhul istiraatiiji ah khayraad badan buu leeyahay shidaalka ugu badan ee geeska Afrika iyo Soomaaliya waa halku eegaago holhol hadaad maqashay waa meeshii waxa weeye hadii la kuurayay dowladda Mareykanku intaan dowladdan dhexe aysan dhicin meeshii la sahmiyay ceelka ugu shidaalka badan weeye ama dhulka ugu shidaalka badan macdanan bay kala duwan bay leeyihiin dhulka wax soo saar badan bay leeyihiin oo beeruhu ay ugu weyn yihiin xoolaha ugu badan ee Soomaaliya marka la fiiriyo halkay ka yimaadaan hadaad maqashay hawdka waa dhulka SSC Khaatumo weeye waxa ku nool dad Soomaalinimada runtii waxa weeye jecel waxa ay u halgamayaan waxa weeye Soomaali inaanay kala go'in cidda Soomaali isku dari kartana waa iyaga cidda kala irdheen karta oo kala goyn kartana waa iyaga jaraa'idada Soomaalida iyo adduunka ay u qabsatay saameyn weyn oo togan ay ugu yeelatay dhulka Soomaaliyeed ama wararka Soomaalida iyo kuwa geeska intaas dad waxa ku nool geesiyaala hadii aad dib u jaleecdaan sooyaalkii iyo taariikhda Soomaaliyeed xilliyadii gumeystihii saan cadaalaha dhulka Soomaaliyeed ku yimid beelihii Soomaaliyeed kulligood agreement bay la galeen heshiis beesha kaliya dadka kaliya ee diiday waxa weeye waran iyo waxa weeye farda iyo guluf qoraadeed kala hortagay gumeystihii saan cadaalaha dhulka Soomaaliyeed ku yimid waxa ay reer SSC Khaatumo beesha kaliya iyo dadka kaliya ee aan heshiis la galin bay hayeen gumeystihii taabadalkeedna waa ila direen ugu dambeyn aragtidii iyo himiladii ay u halgameen waa ay ku guuleysteen mar kale ay isku dayeen gumeystihii isku dayeen inay dhex maraan kooxo argagixisa oo caloosho shaqaystayaal ah kuwaasina ugu dambeyn waa ay ka adkaadeen Laas Canood waa la isugu tegey dowladii Soomaaliyeed oo guuraysa ayaa saacadaha soo socota Laas Canood ku wajahan haddaba dowladii Soomaaliyeed wasiiro dheh taliyaal ciidamo dheh dowladii madaxdii Soomaaliyeed Laas Canood baa loo wada socdaa Mr. Xamse Cabdi Barre intuu maalintii uu sheegayay xog badan baa raadiyay waxa la sheegay in meelo badan la isaga yimid ra'iisul wasaare aan ku raacno ra'iisul wasaare oo fuudada ka mid noqono Laas Canood baan rabnaa Laas Canood maxaa loo rabaa maxaa loo wada xiiseenayaa kow dad Soomaalinimada jecel u halgamay ilaa haddeena shaqadii Soomaaliya oo dhan haya ayaa ku nool dad geesiyaala ku nool dad gobonimo badan baa ku nool
dad waxa way adkaysi badan baa ku nool waa dhul qurux badan xoolihii beerihii shidaalkii macdantii adigu resource oo dhan ilaahay ku banaystay Soomaaliya si kala tagays oo dadkii dismoral ku dhacay oo Soomaaliya la leeyahay war Soomaalida waxa way hadii la kuri meeshan ay u midowdo suuragal ma aha Soomaaliya la kala irdheeyay hal mar baa ka cadoon bilowday halgankaasna wuxuu dharay quruxda iyo qaayaha maanta ka muuqata guud ahaan Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed haddaba saddexdii maalmood ugu dambeeyay garoonka diyaaradaha Laascaanood waxaa ka degay diyaarado fara badan oo ay la socdaan wufuud hordhac u ah safarka ra'iisul wasaaraha aad baan ugu bogaadinayaa shacabka reer SSC Khaatumo sida diiran ay u soo dhaweeyeen sidoo kale uma hadnaqayaa dawladda SSC Khaatumo oo runtii mas'uuliyad weyn iska saartay ammaanka wufuudda kala duwan ee halkaas tagi doonto ammaanka ayaa aad loo adkeeyay ciidamada kala duwan ee kuwa booliiska birmadka hay'adda sirdoonka iyo intelligence-ga dhammaan waxay hayaan shaqo weyn oo wanaagsan ayay hayaan waxa la kordhiyay dhammaan hawlaha amni waxa la adkeeyay ammaanka barkantaroolada sidoo kale shacabka reer SSC Khaatumo waaxyaha kala duwan ee caasimadu ka kooban tahay ayaa la hawlgeliyay dhammaan dadka reer SSC Khaatumo ayaa yar iyo weynba u diyaar garoobaya soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha inay gacmo furan iyo waji furan iyo qalbi wanaagsan in ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaarahoodii wufuud hordhac tagtay saacadaha soo socdana waxa la rajaynayaa wufuud ballaaneed inay tagto xaaladdu waa fiican tahay magaalada waxa halkaas maraysa waa circiraysa ciidamada ammaanka ayaa la kordhiyay kuwa booliiska kuwa sirdoonka intelligence-ga dhammaan shacbiga iyo dhammaan ayaa wada booliis iyo wada sirdoon wada noqday oo dawladooda la shaqeynay SSC Khaatumo dhinaca kale ammaanka xuduudaha ayaa la adkeeyay ciidamada qalabka sida ee militariga ayaa hay'ad buuxda la galiyay qalabkoodu u dhameystiran yahay wax walba oo hadii la kuri ay u baahnaayeen loo dhameystiray ana heegan ugu jiraan ilaalinta difaaca iyo madax banaanida dhulka SSC Khaatumo ammaanka ra'iisul wasaaraha waxa sugi doona cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawlad goboleedka SSC Khaatumo ra'iisul wasaaruhu socdaalka uu ku imaanay Laascaanood markii ugu horeysay Prime Minister Soomaaliya uu gaaro halkaas Laascaanood tagitaanka ra'iisul wasaare Xamse waxay u tahay ama reer SSC Khaatumo guul weyn oo siyaasadeed oo ay gaareen taasna dhaqaale kuma imaan waxa ugu qaalasan qof bilaadan bixiyo waa naf wey nafay u hureen labaanta jiro aan curan ayay u hureen inay guuleystaan inay isjeclaadaan inay mid ahaadaan in calankooda iyo madaxoodu inuu kor ahaado waxa ugu qaalasan oo waa naf bay u hureen hadda diyaar bay u yihiin umadaas umad adag wey wallahi reer SSC Khaatumo Soomaaliya dhabba hadda jecel ma sha Allah Soomaaliya dhabba u marxaati furtay dhibka dadka lagu hayay iyo waxa ay kaga soo baxeen guushaas qadiyadan SSC dadka markii hore qaar ba qabiil u arkay laakiin dadku hadda ogaadeen markay tageen oo arkeen oo ay maqleen oo xog raadiyeen inay tahay qadiyad Soomaaliyeed oo Soomaali lama kala jari karo Soomaali waa mid weey haddaba tagita ra'iisul wasaaraha muxuu ra'iisul wasaaruhu wadaa ra'iisul wasaaruhu mashaariic wadaa حقي وحقوقي reer SSC Khaatumo wada waxa weey hadii la kuuraya wixii dadkan ay lahaayeen buu ay xaq dowladda ay ugu lahaayeen buu wada warar badan oo farxadeed baa jira mar rabaan details badan u galo laakiin waqtigeeda la sugi doonaa imaanka ra'iisul wasaaraha waxa meesha ka bixi doonta oo dhulkan 15 sano ugu dambeeyay uu crisis ugu jiray in la yiraahdo waa dhul isku haysto maamulada isku haysta deeqahoodana la qaybsado deeqaha mashaariicda adduunka Soomaalida ku caawiya gobolada iyo degmooyinka waa la qaybsan jiray divide by 2 waa loo qaybsan jiray deegaanka reer SSC Khaatumo 1% ma soo gaari jirin arintaasi meesha way ka baxaysaa waa dhul la isku haysto waa ku deysay iska ilow waxa kale meesha ka baxaysa Soomaaliya la kala gooynayaa oo waxay ugu yeereen jabaad argagixisada saran qaran baanu nahay xadkay wayoocada dhulkaas anagu naga tirsan yahay arintaasina waa ay u dhamaatay arintaasi waa dhul la isku haysto hadda way dhimatay already waa dhimatay oo waxay dhimatay hadii la kuuro yahay markii dadka intaladooda dib ay gacanta ugu dhigeen
dhulkoodina ay gacanta ku dhigeen markaas horta ay dhimatay hadda kafan baan ku xidhnay xabaashan u sii wadnaa xabaasha baan u sii wadnaa marka prime minister ku yimaadana oo hawlaha iyo xuquuqdii dadkan ay dawladda dhex ku lahaayeen ay la keenana toos baanu iilka u geenanaa ciidna ku roganaa reer SSC Khaatumo marka laga yimaado ummadda Soomaaliyeed oo guuleystay iyo inta ay taageersan Soomaali qabaa'ilka Soomaaliyeed oo dhan way taageersan yihiin arrinteena qadeedeena in Soomaali alla kala goyn waxa aynu haynana waa shaqo Soomaali oo dhan ay ahayd inay wada qabtaan taa marka laga yimaado Soomaalida kale inay ku farxsan yihiin guushaasi la gaaray qaranka Soomaaliya u soo hoyatay idinkuna waad guuleysateen 20 sano ugu dambeeyay waxaad halgan ugu jirteen geedka aad beerateen midhiisa oo aad maanta guranaysaan haleey walaalayaal intii ku shahiiday halganka la galay Ilaahay naxariisna ka waraabiyo kulligood jannada hurdaan inta dhaawacana Ilaahay hawba wadhayo guusha aynu harsanano waa dhiiga shuhadadeeni way salaad kasta aad tukataan u duceeya idinkuna isjeclaada isku duubnaada iswata dawladnimadina ilaashada intaas waa intaas waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo arrin baarlamaanka iskaarsan jamaahiirta yareelas aano yareer SSC Khaatumo wadooyinka wadada airport ka timaada ee garoonka diyaaradaha ka timaada ilaa iyo isku xidha hadii la kuriyo goolada iyo taalada shuhadada iyo ex control iyo waxa weey hadii la ku dhamaan wadooyinka laamiyada halbowlaha sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dawlad goboleedka SSC Khaatumo wayna isqabsataa ayna tabeelooyin dhistaan waa dhistaan hal arrin oo kale way ku korinayaan oo qoliyaha waxa weey hadii la kuriyo daabaca madbacda kala duwan ee wax daabaca waa inaad stiikaro khayraadka resource-ka dhulkani leeyahay iyo deegaankani sida wiilka xabar ka yimid markuu rabano dhulkan wuxuu caan ku yahay waa inaad soo sawirtaan taalooyinkii hadii la kuriyay halgankii daraawusheed taaladii waxa weey hadii la kuriyay silsiladii tareex waxa weey khayraadka dhulkani ku jira hadii ay macdantii hadii ay petrolkii oo dhulkan qani ku yahay beeraha dhulkan qani ku yahay xoolaha dhulkan qani ku yahay waxaas oo dhan sawir ka sameeyay boorad ahaan u soo daabaca calaamada SSC Khaatumo iyo calanka jamhuuriyadda waa in meel walba laga helaa qof kasta waa in qof iyo calan noqdaa hadii la kuuriyay buuraha magaalada Ilaahay ku banaystay quruxda iyo qaayaha u soo jiiday waa in dhammaan calaamada waxa weey jamhuuriyadda lagu xardhaayo kan SSC Khaatumo sawirada saddexda mas'uul ee madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha dawlad goboleedka iyo prime minister kana waa in hadii la kuuriyay aad waxa weey aad tabeelooyin u sameeysan football araba imaanaysa waxa soo socda wufuudda kamid ah wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi waa reer SSC Khaatumo igas waa soo socda waa la reer SSC Khaatumo soo dhaweyn weyn bay u diyaar gareeno special xildhibaano sanataro halay sheegay sanataro badan wasiiradu waxa lagu waxa imaanaya 22 wasiir baa imaanaya sida xogta hadda ku hayo iyo 7 xildhibaanada labada aqal baa imaan doona saraakiisha kala duwan militariga iyo booliiskuna wafuudda ay qaybta ka yihiin wax kale kuma garantiday eraygan laas aanood ba dawladii Soomaaliyeed baa laas aan u soo guurtay laas aanood baa loo soo guuray insha Allah ta'ala qof kasta waa sirdoon ilaaliya dawladnimadiina indhaha iyo dhawahay taagnaadaan isku duubnaada de waxa weey barbarka ka baxda waa bakala qaleen intaas ku soo gabagabeynaya dadkaygiyo waynu guuleysanay guul baynu gaarnay hadaan geerideedu waa xalaal weeye wixii aad in badan u halgamayseen 20 sano ugu dambeeyay halgankii horaba maanta geedkii aad beerateen midhiisa aad guranaysaan waxa tusaale u tihiin ummadda Soomaaliyeed saas ku duubantiin saas u jeceshihiin saas dawladnimadina u ilaasanaysaan waa idin jeclahay waa idin ku faanaa guuleysta insha Allah fariintana isgaarsiiya ummadda Soomaaliyeed kalena calena waa mahadsantihiin sida u taageerteen halgankaas xaq ah ee ummadda reer SSC Khaatumo ay ku jiraan thank you salaam alaykum